walaala sharafta iyo qiimaha badan oo nagu xiran Property Show Soomaaliya kusoo dhawaada mar kale meel walba adduunka ka joogtaan waa idin salaam maalin wanaagsan iyo kuwa habeen u tahan habeen wanaagsan mar kale kusoo dhawaada waa halkii aan naga baratay Property Show waa halkii aan ka baratay property luxury iyo property si casri loo dhisay marka kusoo dhawaada maantana hadda waxaa idin wadaa property si casri loo dhisay guriga maanta idin wada waa ensuite 4 bedroom villa oo ku yaalo Athi-River ku yaala xaafadu ku yaalana waa 35-minute drive from Nairobi CBD so 35 daqiiqo oo baabuur waa drive marka guri si casri loo dhisay waa totally modern marka saa u arkaysaa ka guriga cabirku ku fadhiyo waxa waa 3600 square feet waxa waa 3600 square feet fadhigiisa waa ka fadhi markaa soo gasho saas u weyn yahay fadhiga aad u weyn fadhi walba dhigan karta diningkii iyo fadhiga wuu isku furan yahay aad u weyn iyo jikada marka meesha arkaysa waa window weyn mid aad u dheer waaye marka uu soo galay natural light kii toos guriga wax natural light waa gebigiis markaas uu yaala window natural light soo galaya marka daaqada kala furato waa saas uu yaala marka si banaankiisa waa ka guriyaasha saas ay u dhiseen laba design waa mid qaar saan ay u dhiseen qaarna sidii kale ay u dhiseen bedroomka qasab kor waaye dhankii kalena saan ay u dhiseen marka laba design waaye fadhigiisana waa saas u yaala mid walbana waxa waaye wuxuu leeyahay window aad u dheer oo natural light ay u sameeyeen oo soo karsaas banaanka gibi saas u yaala xaafada cusub waaye guriyaal heer sare ay meesha ka dhiseen qof walbana backyardkiisu leeyahay backyardkana guriyaashaas ay u yaalaan xaafada cusub waaye mar walba ay faraha gibi waa wala cusub marka gudaha gurigii baa idin tusaa hadda insha Allah marka stairs-kii yaasha kor waaye jikadii iyo waxyaan ka bilaabi doona insha Allah jikadan London waaye American style jikada aad I really like jikadiisa tileski ilaa armaajayaasha wooden kii waxay dhan is very perfect ilaa kukarkii iyo ovenkana waa asli si casri very high modern tileski waa idin sheegay tileskaas aan really much the drawers labada qolkan waxaa mid waa washing machine-kii waxaa loo talagalay mid kalena waa stove-gii jikada waa midkii kalena really enjoy the jikada ugu yaalo really nice hadda kolna la soo arkaa stairs-kii waa ka bedroom-yaashii waa kan waa master bedroom-kii arkaan ensuite waaye iskushiisi waxa dhan watay balkoon fiican leeyahay waa ka balkoonkiisa any chair dhigan karta any table aad u weyn aad u weyn view waa joognaa waa arkaysa view so that view is nice marka qolkan aad u weyn qolkii aad u weyn iskushiya aadana iskushiya saase shower iyo bathroom u leeyahay iskushiya qol walbana saas uu leeyahay waa 4 bedroom right
geyna musqushiisi markaan waxay u talagalay walking kabad waay wardrobe intaasuu leeyahay aad u weyn spacekiina ma xumo waxaad waa deeqa kole dharkii waxaad dhisan kartaa mar qolkii kalena waa ka saas u yaala qolkii kale jiifkii kale jiifyaasha aad ay u weyn yihiin jiif number 3 na aad u weyn yihiin sizable jiif number 4 ka asagana aad u weyn yahay sizable nice really nice guri weyn waaye bedroomyaasha saas ay u fiican yihiin saas ay u yaalaan weyn shower iyo bank musqula aad u weyn marka waaye xaafadda saas u yaalaan waa guryaha hadda la dhisay xaafadda cusub marka waa really modern su'aalo badan ay soo qorteen oo channel waxay dhahdaan Muqdisho noo keen Nairobi maxaa noo keenta mar walba Nairobi waxaa main office kaina Nairobi isli ku yaala daraadaas waaye tan labaadna standard guryaashii aan fiirina anaka guri walba iska soo gelin waana standardkii iyo wixii aan fiirina markaasaan usoo gelina marka Muqdisho guryaal had soo socdaa jiro oo standardka aan rabno gaaray marka waa idin soo bandhigayna insha Allah markuu guriga dhamaadu jooga hadda insha Allah waana idin keeni doona waa apartment yaal waaye markaasaan idin keenayna insha Allah sabab guri oo haddaan keeno standard kaina fiirina iyo low standard ma qaadan mana soo gelin so be patient nala socda office branch aan ku leenahay xamarna wadanka aadaan u jecelnahay wadanka inuu horumaraa rabno mar walba wax walba dee ma soo gelin karto wax qaarsoon oo standardkii qasab oo in standard leeyahay halkaana diningkii waaye diningka aad u weyn yahay marka dining set walba kuu qaadayo any dining set waa dhigan kartaa halkaana waa jiraan jirta saas u yeesha guryaashan soo bandhigno waxaan leenahay waa qasab inaan standard iyo quality aan rabno uu gaaro saasaan ka fiirina mid kale jiimkii waxaa yaala waa ka jiimka iyo jiim equipmentkii waaye saas u yaala xaafadda jiimkeeda iyo banaanka waxaa jira swimming pool waaye the view of the house, the view of the area. Enjoy the view. Qiimaha gurigan waxaa waaye waa 25 million Kenya shilling 25 milyan oo Kenya shilling waaye